la beegsanayo haddana in mararka qaarkood dacaayado Somaliland dib loogu soo celiyo waxaan qabaa oo aan ku kalsoonahay kuwa hadraawi dilay iyo kuwa dhibta la saxanood gudahooda ka wada inay si dhow u wada shaqeynayaan in dadku aanay sharciga faraha ku qaadan oo aanay bangiyada gelin oo aanay shirkadaha dhicin oo aanay bakhaarada jabsan oo aanay dadka ganacsatada hantidooda xaraashan mararka qaarkood qofka bini'aadamkii wuu samayn karaa shucuur uu ku muujinayo inuu wax diidan yahay taa macnaheedu maaha inuu qofku wax kasta u furan yahay inuu qof dilo inuu hanti dhaco inuu wuxuu doono hantidii ummaddu ka dhaxaysay burburiyo dee waa sharcigiiba qofku gacanta ku qaata dhammaaninta xilkaska ee nabadda ka shaqeynaysa odayaasha kuwaanu shalay la kulannay kuwaanu maanta la kulannay oo dad badan oo caqli leh ay garanayaan in dadku ay nabaddu wax qaaliya tahay ururada mucaaradka ah ee dalka jamhuuriyadda Somaliland ee qaarkood hadlayay waxaan leeyahay waxaad kala garan weydeen kaambeynkii gudaha iyo jiritaanka jamhuuriyadda Somaliland